guddiga dhakhaatiirta gobolka Togdheer iyo hay'adda SBI ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaga wada hadlay sidii labada dhinac ay u wada yeelan lahaayeen xiriir joogto ah iyo isfaham guud. Cabdiraxmaan Cali Xuseen oo ka socda hay'adda BSI ayaa iftiiminaya muhiimadda kulankan. waxa runtii uu yahay kulankani mid dhakhtarada iyo hay'adda BSI ay isku xog wareysanayaan si markaa ay bulshada ay u wada shaqeeyaan arrimaha caafimaadka ay uga wada shaqeeyaan ay uga tashan lahaayeen isuna weydiin lahaayeen maxaa la dhahdaa talooyin iyo maxaa la dhahdaa sidii wax loo qaban lahaa ma aha kii ugu horeeyay halkan oo kaliya shalay waxaan ku soo qabanay Burco Hargeysa horaan ugu qabanay Booramo insha Allah waan ku qabanaynaa waana isku soo noqon doonaa waa miitino ama kulanno xiriir insha Allah noqon doona oo maaragtay gobolada dhan insha Allah ka dhici doona marka halkan Burco maanta waxa wada jooga Laascaanood ama gobolka Sool iyo Ceeri Gaabo oo runtii dhaxday gaariga kula jabay waxaan filaynaa inay insha Allah ina soo gaaraan iyadoo aynu hawsha wadno. Dr. Xuseen Rikood oo ka mid ah guddiga dhakhaatiirta gobolka Togdheer oo soo dhaweeyay kulankan ayaa waxa uu yiri dhakhaatiirta gobolka Togdheer ay la kulmayaan hay'adan BSA la yiraahdo oo laga hadli doono shaqooyinka ay qabato iyo arrimaha ay u fuliso muxuu ahaa dadka ay insha Allah ku saabsanaan doona. agaasimaha guud ee ururka dhakhaatiirta Somaliland Yaasiin Xaaji Jaamac ayaa xusay in kulankan yahay kii horeeyay ee isugu yimaadaan labada dhinac balse ay jiri doonaan kuwa kale ay isugu iman doonaan. wuxuuna baan sii sheegayaa in miitanku uu yahay kulli kii noociisa ah ee ugu horeeya mid kalena uu inooga dambeyn doono. Cabdiraxmaan Bahadhow si yara faahfaahin doona.